barasabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shide oo ay weheliyaan maayirka degmada Balligubadle iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa maanta ka qayb galay ololaha maalinta dhiraynta ee 15 Abriil waxayna dhirbeeristaasi ka fuliyeen goobo kala duwan oo kamid ah magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd munaasabad loo qabtay maalinta dhiraynta Soomaaliland oo lagu qabtay xarunta taaladii ururkii SNM ee magaalada Balligubadle ayaa waxa hadal ka jeediyay xubno ay kamid ahaayeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balligubadle maanta waa maalintii dhirbeerista oo madaxweynuhu weerartay soo saaray madaxweyne anagoo fulina waa martaadii maanta gobolka dhamaan waxa ka jirta dhirbeeris aan ku beero dhirtii uu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u asteeyay maanta uu weerartay ku soo saaray wasaaradda deegaanka yiri socodsi waxa sharaf ah in aan maanta kala soo qayb galno barasabka gobolka maanta waxaan ku bilaabay maalintii dhirbeerista Soomaaliland weerartay madaxweyne anagoo fulinayna waxaan beeraynaa dhirtii goobtan taaganahay waxa weeye maxay tahay xaruntii SNM gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay barasabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shide waxaana ugu horeyn bulshada ku dhaqan gobolka Hawd oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan ololaha dhiraynta Soomaaliland shacabka reer Hawdna waxaan u dirayaa salaam baan u dirayaa midnimadooda nabadgelyadooda sharaftooda iyo siday saaka dhamaan ugu dareereen inay fuliyaan amarkii madaxweynaha maanta waa maalintii uu madaxweynuhu dikreetada ku soo saaray inay noqoto 15 Abriil maalinta dhirbeerista Jamhuuriyadda Soomaaliland annaga oo amarka madaxweynaha fulinayna oo iskaashanayna shacabka reer gobolka Hawd degmada Balligubadle gaar ahaan waxaanu saaka beernay dhir badan baan beernay intii awoodayada ahayd halkan aanu ka beernay dhirta waxa weeye waa xaruntii ururkii dib u xoreynta Soomaaliland ee SNM loo oran jiray waxaan u doortay oo aan saaka halkan ugu asteeyay waxa weeye inaynu awalan marka hore u ducayno mujaahidiintii ku dhimatay dalkan dib u xoreyntiisa inaynu ducayno oo dhammaan shacabka reer Soomaaliland u duceeyaan geesta kale barasabka gobolka Hawd waxa uu degmada Gumburaha Banka ee gobolka Hawd kaga qayb galay ololaha maalinta dhiraynta Soomaaliland iyo sidoo kale hariman sharafeed ay ku maamuseen bulshada ku dhaqan degmada Gumburuhu taas waa mahadnaqa Ilaahay maanta waa 15 Abriil waa maalintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku dhawaaqay in ay dadku dhirta beertaan maanta dhirtii waad aragtaa gacantaanu ku haynaa madaxweyne waanu beerinaa go'aankii wanaagsaneeda soo jeedisay ee aad noogu soo dhiibisay gudoomiyaha gobolka waana soo gaarsiiyay dhirtii Maxamed Ciir Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale warbaahinta qaranka Soomaaliland degmada Gumburaha Banka.